soo dhawaada daawade maamulihii TikTok ka faa'iiday 44 bilyan oo dollar oo shaqada iska casilay maxay tahay sababta muuqaalkan ayaan idinku soo gudbin doonaa ogow wuxuu ka mid noqon doonaa dadka dunida ugu taajirsan mid ka mid ah asaasihii TikTok ayaa iska casilay xilkii agaasimaha guud ee uu ku hayay ByteDance oo ah shirkadda maamusha TikTok wuxuuna sababta uga dhigay inuu qoyskiisa la noolaado iyo inuu riyo maalmeed iska galo ninkan bilyaneerka ah Zahan Yiming oo 38 sano jir ah wuxuu shaaciyay inuusan lahayn xirfadda maamul wanaaga taana ay ka mid tahay sababaha uu isku casilay wuxuu intaa ku daray in uu jecel yahay wax akhrinta iyo riyo maalmeedka halkii uu maamuli lahaa shirkad isgaarsiin sida lagu daawacay Bloomberg wuxuu ninkan helayaa faa'iido gaaraysa 44.5 bilyan oo dollar wuxuuna sidaas ku noqonayaa qofka 31aad ee ugu taajirsan caalamka isniintii Zahan wuxuu shaaciyay in warqadda uu isku casilay ku muujiyay in uusan lahayn xirfad wanaagsan oo dhanka maamulka ah runta waxay tahay in aanan lahayn xirfadda hogaaminta iyo maamulka wanaagsan sidoo kale waxaan jeclahay inaan keligay ahaado oo shaqeeyo buugaag akhriyo oo maalintii aan ku riyoodo waxyaabaha dhici kara ayuu yiri Zahan Yiming wuxuu xilka banayn doonaa dhamaadka sanadkan wuxuuna diyaaradda saari doonaa nolosha keligiisa ah Liang Rubo oo ka mid ah aasaasiyaasha ByteDance sidoo kale maamula qaybta shaqaalaha iyo maaraynta ayaa noqon doona agaasimaha cusub ByteDance oo ah shirkadda maamusha TikTok waxaa la aasaasay sanadkii 2012 waana shirkadda internetka ugu weyn Shiinaha ee tartanka adag kula jirta kuwa caalamiga ah TikTok ayaa shirkaddan u noqotay fursadda iyo guusha ay gaareen ee caalamiga ah taasi oo aysan helin shirkadaha kale ee teknolojiyadda ee Shiinaha laga leeyahay Yiming waxaa loo maleynayaa in gudaha Shiinaha uu ku wajahayo cadaadis badan oo la xiriira dhanka baaritaanada iyo jasuuraynta sidoo kale dawlado kale oo caalamka ah ayaa cadaadis ku hayay sidoo kale madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa dhowr goor ku hanjabay in shirkadda oo dhan uu xiri doono wuxuu dhowr goor ku hanjabay inuu talaabooyin ka qaadayo sidoo kale dalka India ayaa mamnuucay TikTok oo ay ku eedeeyeen halis dhanka amniga ah muuqaalkeeni maanta waa inaga inta fadlan share garay oo la wadaag bulshada idinku xiran mahadsanidin